haddii aadan duuli karin orod, haddii aadan ordi karinna soco, haddii aadan socon karinna garguuro. Si kastaba ha ahaatee, isku day inaad horay u socoto. Ogow, qofna ma liita, balse waxaa jira dad aanan ogeyn halka ay ku fiican yihiin. caqabad kasta oo ku hor timaado waxay ku tusinaysaa waddada guusha. Lacagtu wax walba laguma iibsan karo, keliya ku qanac waxaad haysato, waxaad noqonaysaa qof faraxsan. Dadka qaar waxay la yaabaan ama ay isweydiiyaan sababta ay dhibaatada ugu soo noqnoqoto, balse ma ogin casharada iyo imtixaanaadka lagu soo celceliyo ilaa uu ardayga wax ka fahmo. Ha u malayn markasta in qiimaha sare uu la socdo tayada sare. Qofna ma doono markii uu dhalanayo midabkiisa, nasabkiisa, hantidiisa iyo cidda uu noqonayo. Haddii aadan ixtiraamin abuurta, fadlan ixtiraam abuuraha. Dhib ma lahan waxay dadku ku dhahayaan, horay u soco haddii aad saxan tahay si aad u gaarto riyadaada. Qofna ha ku tiirsanin badan, sababtoo ah ma jiro qof kula joogaya mar walba. Wax kasta oo aad ku riyooto ma helaysid, balse waxaad helaysaa wixii aad shaqaysato. Ha murugoon haddii ay dadka ku dhahayaan waxaad tahay eber, sababtoo ah wax walba waxay ka bilowdaan eber. Haddii aad maanta tahay dhagax, beri waad noqon kartaa diamond. Si aad u gaarto hadafkaagana, hiigso meel ka fog hankaaga. Ogow, habeen waliba oo mugdi ah waxaa ka dambeeya maalin iftiin badan. Adiguna waad ka bixi kartaa nolosha maanta. Saaxiibada dhabta ah waa sida gacanta iyo isha. Haddii ay gacantu xanuunsato, ishu way ilmaysaa. Haddii ay isha ilmaysana, gacantu way ka masaxdaa.